qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leela dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leyla ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid a waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadima waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedo dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyla ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu yidhi maalin kalaa la arkay isagoo ay haysto dhudhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyla ay ku jirto ka soo baxay ka soo baxay maxabadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal allahu alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la addimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahaay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiinkiibuu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamaca hadda maan ku xidhan low kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muطiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay